taariikhda waddanka Indonesia waa dal jasiirado ka samaysmay oo dhaca in ka badan hal qaarad wuxuuna dhacaa koonfur bari Aasiya iyo qaaradda Oceania. Waa dal u dhexeeya badweynta Hindiya iyo badda Pacifiga wuxuuna ka kooban yahay dalkani ilaa 17,000 oo jasiiradood. Waxaa dalkan ka jasiirado badan kaliya wadamada kale ah Canada, Norway, Sweden iyo waddanka Finland. dalkani wuxuu dhacaa jasiiradda Borneo oo ay wadaagaan wadamada Malaysia iyo Brunei. Sidoo kale wuxuu dhacaa dhanka galbeed ee jasiiradda New Papua waxaana jasiiradan la leh dalka Papua New Guinea. Caasimadda Indonesia waa magaalada Jakarta, waana magaalada ugu dadka badan Indonesia oo waxaa ku nool 10 milyan oo qof. Waa magaalo dhacdo mid ka mid ah jasiiradaha dalkani ee la yiraahdo Java, waana jasiiradda ugu dadka badan caalamka Java, waxaana dadka reer Indonesia ay ku nool yihiin boqolkiiba 60 jasiiradan. Java waa jasiiradda ugu muhiimsan dalkani oo waxaa dhaca 3 magaalo oo kala ah Jakarta, Surabaya iyo magaalada Bandung. Indonesia waa mid ka mid ah wadamada aadka u kala duwanaanshaha badan adduunka xagga noolaha. Dadka reer Indonesia tiradoodu qiyaas ahaan waa 280 milyan oo qof, waana dalka afraad ee ugu dadka badan adduunka, waxaana kaliya ka dad badan wadamada kale ah Shiinaha, Hindiya iyo Mareykanka. Indonesia waa dalka ugu muslimiinta badan caalamka. dadka dalkani ku nool ayaa haysta diinta Islaamka boqolkiiba 87. Islaamkan ayaa boqolkiiba 99 ah Sunniyiin, waxaana dalkani ku nool dad haysta diimaha Hinduuga iyo Buddhismka. Dadka dalkani ugu badan waa qowmiyadda Javanese oo dega jasiiradda Java, waxayna ka yihiin dadka reer Indonesia ilaa boqolkiiba 40. Indonesia waxaa looga hadlaa luqadda Bahasa Indonesia, balse dalkani waa midka labaad ee looga hadlo luqadaha adduunka ugu badan, waxayna gaarayaan ilaa 720 luqadood. Dhaqameedka waddankani laga cuno waxaa ka mid ah cunto dhaqameedka loo yaqaano gado-gado, soto iyo satay. waxaa Indonesia qarnigii 13aad si xooli ah u gaarayay ganacsato muslimiin ah. Aaminaadda iyo daacadnimada ganacsatadaasi waxay sababtay inay diinta Islaamka ku qancaan reer Indonesia. Maantana Indonesia waa dalka adduunka ugu islaamka badan. Dalkani waxaa qarnigii 17aad gaaray gumeystihii Dutch wuxuuna xukumayay in ka badan 300 oo sano. Sanadkii 1942 Japan ayaa la wareegtay dalkani, laakiin markii Japan laga awood roonaaday dagaalkii labaad ee gaalada sanadkii 1945 ayay xornimada qaadatay Indonesia, waxaana ku dhawaaqay Sukarno uu ololeynayay madax-bannaanida dalkani, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Indonesia oo waddanka ugu dhaqaalaha badan marka la fiiriyo koonfur bari Aasiya. wuxuu ka mid yahay dalkani ururka G20, waana dalka 16aad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan GDP ahaan. waxyaabaha uu dalkani ku tiirsan yahay waxaa ka mid ah batroolka, gaaska dabiiciga ah iyo macdan qodida iyo soo saaridda dunta iyo dharka. lacagta dalkani waxaa lagu magacaabaa Indonesia Rupiah. Indonesia waxay leedahay dhul cagaaran oo barwaaqo ah oo ay ku nool yihiin duurjoog badani, taasoo kaalinta labaad ku jirta xeerka kala duwanaanshaha noolaha adduunka. magaca Indonesia wuxuu ka yimid xarafka Laatiinka ah ee Indus oo micnihiisu yahay India, iyo ereyga Giriigga ah ee micnihiisu yahay Nusia oo jasiirad ah. markii la isku daro labadaas erey waxay noqonayaan Indonesia.